وهاك daawadayaal isku soo noqod wanaagsan markana waxaynu si aanba qaadi doonaa kaambiyada labaad ee barnaamijkeena maanta waxaa ku loolamaya dugsiyada sare ee Horseed Madiina iyo waliba Al Anwar markan su'aasha toddobaad ee barnaamijka waxay ku socotaa tartamayaasha dugsiga sare ee Horseed Madiina waxaad sheegtaan muslimiinta ugu badan wadanka ay ku nool yihiin mar labaad hadii aan idinku celiyo su'aashan oo ah mid aqoon guud ah waxaad sheegtaan muslimiinta ugu badan wadanka ay caalamka kaga nool yihiin mar saddexaad hadii aan idinku celiyo waxaad sheegtaan muslimiinta ugu badan wadanka ay ku nool yihiin inaad fahanteen ayaan filayaa kana jawaab celin doontaan insha Allah أنا ومجا إلهام محمود حسين ونطرت مسائل دكسيبه وصدح سرعي هرساد مدينة سؤاشة جوابت هذا أسكودة وإندونيسيا وهاجاك طلعوا جوابتها كبحيان ترتمياش الدكسية سرعي هرساد مدينة ما صحبها مسوا خلاص قديك تتناقض سؤاشة نوعية سؤال قوم قدر لو يديار ده دكسية وصدح سرعي هرساد مدينة جوابتها كبحيان ومتسحة براو هرساد مدينة الله ودي بعود وهاك daawadayaal markana su'aasha sideedaad ee barnaamijka waa su'aal aqoon guud ah waxay ku socotaa tartamayaasha dugsiga sare ee Al Anwar waxaad sheegtaan magaalada ay ku nool yihiin dadka madow ee ugu badan adduunka mar labaad hadii aan idinku celiyo Seer Al Anwar waxaad sheegtaan magaalada ay ku nool yihiin dadka madow ee ugu badan adduunka mar saddexaad hadii aan idinku celiyo waxaad sheegtaan magaalada ay ku nool yihiin dadka madow ee ugu badan caalamka inaad fahanteen ayaan filayaa kana jawaab celin doontaan insha Allah بسم الله أنا مجيء حسين محمد علي أهنا متكمدة ترتمياشة دكسيها وسط حسر الأنوار إكستريمس العرتن سؤال الجواب تاع قرعي إن شاء الله إحنا قدمتها نيويورك وهاك طلعوا جوابتها كبحيان ترتمياشة دكسيها سريع الأنوار سؤال سيدة برامجك ما صاحبها مستوى خلاص حسن كاي سؤال سؤال قوم قدر لو يديار ده دكسيها وسط حسر الأنوار جوابتها كبحيان ومتسحة براو هير الأنوار لا بدي بعود وهاك daawadayaal markana su'aasha sagaalaad ee barnaamijka waa su'aal biology waxaad sheegtaan tartamayaasha dugsiga sare ee Horseed Madiina shaqada uu qabto maqaarka bini aadamka mar labaad hadii aan idinku celiyo waxaad sheegtaan shaqada uu qabto maqaarka bini aadamka mar saddexaad hadii aan idinku celiyo tartamayaasha dugsiga sare ee Horseed Madiina waxaad sheegtaan shaqada uu qabto maqaarka bini aadamka inaad fahanteen ayaan filayaa kana jawaab celin doontaan insha Allah مجيء ونور عمر محمود كان صاحب دكسية وصدح سرعي هرسد مدينة سؤال جوابته دانكوري يعني وحنا نقدم إن شاء الله producing wastage and controlling وحو صار ديزك وحنا دفاع هبجيسك هبجيسك جركة وحو صار ديزك وحنا دفاع هبجيسك بالأدنك وهاك طلعوا جوابتها كبحيان سؤال سجالات برامج كترتمياشة دكسية سريع هرساد مدينة ما صحبها مستوى خلد قديك ترتناقونات سؤال نوعية سؤال بيولوجي لو يديار ده دكسية وصدح سريع هرساد مدينة جوابتي كبحيان ومتسعة براو هرساد مدينة لا بدي بعود
markana su-aasha tobnaad ee barnaamijka waxay ku socotaa tartamayaasha dugsiga sare ee alanwaar waxaad sheegtaan halbeega cufka ah. mar labaad haddii aan idinku celiyo tartamayaasha dugsiga sare alanwaar waxaad sheegtaan halbeega cufka ah. mar saddexaad haddii aan idinku celiyo waxaad sheegtaan halbeega cufka ah. inaad fahanteen ayaan filayaa kana jawaab celin doontaan insha allah. magac waa Shukri Mahad Maxamuud kana mid ah tartamayaasha iskuulka Alanwaar X dhameeyay Cartan. Su'aasha taa ka warcelin insha Allah waxay noqonaysaa kilogram. waa hagaag talow jawaabta ay ka bixiyeen su-aasha tobnaad ee barnaamijka tartamayaasha dugsiga sare ee Alanwaar ma sax baa mise waa qalad guddiga tartanaqoona. su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Alanwaar reer Alanwaar jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. bravo reer Alanwaar 2 dhibcood. وهيك داود يا المركنا وحين سوق عنا قيبها الدنباء كان بيد اللباد سرتن كنا مانتا وحا حسين نظر إن سرتن كا أي تابق لنا يسو دلدا وحبرشة أهل جاهفين بس يدنا لنك سؤالها يسو ديارسي جامعة هيميلو وحا برامج كا أي نوقع قلنا نهاي إن كرلو قادو جراس كارديد الصوماليات مركنا سؤال شطمات برامج كا وسؤال شكوبي تمنات برامج كا waxaa sheegtaan tartamayaasha dugsiga sare ee Horseed Madiina su-aashan oo ah mid suugaana waxaad sheegtaan fanaanada Sahradowo kooxdii ay ka tirsaneed. mar labaad haddii aan idinku celiyo reer Horseed Madiina waxaad sheegtaan fanaanada Sahradowo kooxdii ay ka tirsaneed. mar saddexaad haddii aan idinku celiyo waxaad sheegtaan fanaanada Sahradowo kooxdii ay ka tirsaneed. inaad fahanteen ayaan filayaa kana jawaab celin doontaan insha Allah. magacaygu waa Hibaaq Cabdirashiid oo tartamaysa dugsiga hoose dhexe sare ee Horseed Madiina. su-aasha isku day insha Allah waxay noqon doontaa waa hawlada waa beri. waa hagaag talow jawaabta ay ka bixiyeen su-aasha 11aad ee barnaamijka tartamayaasha dugsiga sare ee Horseed Madiina ma sax baa mise waa qalad guddiga tartanaqooneed. su-aashan oo ahayd su-aal suugaan ah una dhacaysay sheeg fanaanadii Sahradowo kooxdii ay ka tirsaneed. jawaabtii ay ka bixiyeen dugsiga hoose dhexe sare ee Horseed Madiina ma ahan mid sax ah. haddii markan ay soo hareer martay su-aasha 11aad ee barnaamijka tartamayaasha dugsiga sare ee Horseed Madiina bal markan si ka faa'iideysi ah waxay hortaalaa dhigooda Alanwaar jawaabta. bismillaah anoo magacayga Xuseen Maxamed Cali ahna mid kamid ah tartamayaasha dugsiga hoose dhexe sare Alanwaar X dhameeyay Cartan. su-aasha jawaabta hadaan ka warceliyo insha Allah waxay noqon doontaa 15. waa hagaag talow jawaabta ay ka bixiyeen su-aasha 11aad ee barnaamijka tartamayaasha dugsiga sare ee Alanwaar oo si ka faa'iideysi ay u gudubtay kadib markii ay soo hareer martay tartamayaasha dugsiga sare ee Horseed Madiina ma sax baa mise waa qalad guddiga tartanaqooneed. su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Horseed Madiina soo hareer martay minka si ka faa'iideysan hortaalla ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Alanwaar jawaabtii ay ka bixiyeen ma ahan mid sax ah. su-aashan waxay u dhacaysay sheeg fanaanada Sahradowo kooxdii ay ka tirsaneed. jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa waxa ay ka tirsaneed Sahradowo kooxdii la oran jiray Durdur. waa hagaag bal markana waxaynu soo gaarnay su-aasha 12aad ee barnaamijka waa su-aashii ugu dambeysay oo xaq u lahaayeen tartamayaasha dugsiga sare ee Alanwaar reer Alanwaar waxaad sheegtaan fanaanada Farxiyo Cali Sheekh kooxdii ay ka tirsaneed. mar labaad haddii aan idinku celiyo waxaad sheegtaan fanaanadii caanka ahayd ee Farxiyo Cali Sheekh kooxdii ay ka tirsaneed. mar saddexaad haddii aan idinku celiyo waxaad sheegtaan fanaanada Farxiyo Cali Sheekh kooxdii ay ka tirsanaad waqtigii barisamaadka. inaad fahanteen ayaan filayaa kana jawaab celin doontaan insha Allah. bismillaah su-aasha ka warcelin waxay noqon doontaa waa kooxda 18.
hagaag talow jawaabta ay ka bixiyeen su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijka tartamayaasha dugsiga sare ee Al-Anwaar ma sax baa mise waa khalad guddiga tartan aqooneed su-aashan waxay su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo si wada jir ah ay ugu loolamayeen iskuulaadka Al-Anwaar ee degmada Dharkinley ee gobolka Banaadir iyo dugsiga hoose dhexe sare Horseed Madiina ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir su-aashii ahayd su-aasha suugaanta noo dhaceysay sheeg fanaanada Farxiyo Cali Sheekh kooxda ay ka tirsaneyd jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah bravo reer Al-Anwaar 2 dhibcood waag daawadayaal wali waxaad daawanaysaan tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee TV-ga Som News waxaa maanta ku loolamaya dugsiyada sare ee magaalada caasimadda ah ee dalka ka wada jira ee Horseed Madiina iyo waliba Al-Anwaar waxaana xusid mudan in barnaamijka ay fududeyso dalada waxbarashada ahliga ee FMBS iyadoo dhanka su'aalaha ay soo diyaariso jaamacadda Himilo markan waxaynu soo gaarnay qaybaha dambe ee tartankeena maanta bal Xasan Kaaye oo kamid ah guddiga tartan aqooneedka ka codsado inuu noo soo koobo natiijadii noo soo socotay muddo saacad ku dhow aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bile tartanka oo ahaa mid aad u xiiso badan runtiina qaybihii dambe ee barnaamijka la garan karo sida daqiiqadii ugu dambeysay uu isku bedelay hayeeshe su-aashii ugu horeysay waxaa la weydiiyay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Horseed Madiina su-aashii ugu horeysay waa ay ka jawaabeen su-aashii labaad kama aysan jawaabin su-aashii saddexaad kama aysan jawaabin su-aashii afaraad sax ay ugu jawaabeen su-aashii shanaad sax ay ugu jawaabeen su-aashii lixaad ee xaqa ay u lahaayeen kama aysan jawaabin waxa ay ka faa'iideysan su-aashii saddexaad ee soo hareer martay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Anwaar waxa ay urursadeen dhibco gaaraya Horseed Madiina 7 dhibcood halka dugsiga hoose dhexe sare Al-Anwaar su-aashii ugu horeysay la weydiiyay sax ay uga jawaabeen su-aashii labaad kama aysan jawaabin su-aashii saddexaad kama aysan jawaabin su-aashii afaraad waa ay ka jawaabeen su-aashii shanaad waa ay ka jawaabeen su-aashii lixaad ee ahayd su-aashii ugu dambeysay si sax ay uga jawaabeen halkaasi waxay ku urursadeen dhibco gaaraya waxay ka dhigan tahay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee tartanka inuu isbedelay nasiibkana uu ka heliyay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Horseed Madiina waxaan soo dhaweynaynaa ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Anwaar waxaan sii sagootinaynaa ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Horseed Madiina oo waqtiga uu ku heliyay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Xasan Maxamed Cali Kaahiye oo isagoo ka wakiila dalada waxbarashada ahliga FMBS natiijada inoo soo koobayay guud ahaan barnaamijka intaas ayaynu kusoo koobanaa waxaan mahad ballaaran aan u celinaynaa tartamayaasha labada iskool iyo waliba maamulka iyo waliba macallimiinta iskooladaasi waxaa xusid mudan daawadayaal in tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee telefishinka Soomaali News looga gol leeyahay in kor loogu qaado garaadka ardayda Soomaaliyeed maanta waxaa si wada jira barnaamijka halkan idin kala socodsiinaya aniga Maxamed Bilagile iyo waliba saaxiibkay Xasan Maxamed Cali Kaahiye anagoo isku duuban intaynu barnaamijkan kiisa xiyo kulmi doono tartamayaqaanada iyo waliba taabageliyaasha iyo waliba hagayaasha barnaamijka waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo amaan Allah qoraalka akhriska buuga bayaanu leerid maraqabkaada bilowinkaada bogsi qoraalka akhriska buuga bayaanu leerid jaxa hada ra'sa shada'aga ka la ma'na wahaya